السلام عليكم ورحمة الله وبركاته isku soo noqod wanaagsan oo kale waa maalin kale oo jimco ah qurux badan jimco mubaarak walaalaha Soomaaliyeed in ku midowna shirkaddan Ombasif meel kastoo aad joogtaan iyo waqti saydiin tahayba maasha Allah caaway 100 qof iyo 102 qof buuba gaarayay maasha Allah intii hore u soo gashay ilaahay xifdiyo waxaan rabnaa insha Allah tacaala anigoon ku dheeraanayn qodobada ugu muhiimsanaa oo CEO-geena Ash 8 bisha oo ahayd maalintii Arbacada oo uu ku soo biiray maxaa la yiraahdaa saddexda nin ee barnaamijka Ombasif maxaa la yiraahdaa 360 Marty iyo Chris iyo maxaa la yiraahdaa Red markii ay maaragtay kolba wax badan ay ka hadleen ayaka qofkii rabaa fiidiyowga meeshuu yaalla dib u dhageysan doonaa laakiin xilli dambe oo CEO-geena ku soo biiray Ash oo maaragtay si warbixin yar oo qurux badan oo kooban uu maaragtay na siiyey tiyaa rabaa marka intii akhrisatay dee gruubada waa la isla share gareey waa la arkay laakiin intii aan arag in maaragtay ay maaragtay ka warqabaan markii koobaadba CEO-geena uu salaamay dadkiiba Ash waxa uu yiri su'aal buu weydiiyo wuxuu yiri waxaan idin weydiinayaa maxay yihiin shanta arrimood ee ugu waaweyn oo ay tahay haddii aanu rabno inaan internet oon garayno ama aan internetka annagu aan la wareegno ama aanu maaragtay annagu aan meel aan leenahay samaysano macnuhu halkaas u dhigmayaaye maxay tahay shanta arrimood oo ugu waaweyn oon u baahannahay aduu markaas leaderski meesha ku jiray midba wax buu la booday mid wuxuu yiri inaanu maaragtay saas haysano aduu midba taluu sheegay laakiin shantii arrimood ayuu markaas isla durbadiiba sheegay shanta arrimood oo kan koobaad yahay wax loo yaqaano single sign on oo ah maanta ecosystemka aan haysano Ombasif ecosystem haddii maanta aad Ombasif ka mid tahay oo aad haysato email iyo password aad ka samaysatay waad guulaysatay maxaa yeelay waxaad imaatay xarun ama ma aragtay one stop shop maxaa la dhihi karaa Soomaaliga aduu waxaad imatay xarun waxaan ku sample ahaan ka dhigi karaa waxaad soo gashay for example mall meel weyn oo hadda mall waxaa u malaynayaa moolasha ugu waaweyn adduunka waxaa ka mid ah mall la yidhaha Westfield oo hadda UK ku yaallo kale qofkii garanaya London oo kale baan ka qiyaasi karaa waa hadda macnaha qiyaasta ugu dhow aan kuu sheego ileen moogtahay qofku internetka hadduusan warbixin badan ka aqoonin waxaasuu ku daalaya kasoo qaad moolkaasaad soo gashay ama meeshaa weyn ee dukaamaysiga lagu samaysanayo ayaad soo gashay albaabka markaad soo gasho maxaad arkaysaa dukaan bidixdu kaa xigaa mid midigtu kaa xigaa mid waa kaa horeeya dabaq baad haddana sii koraysaa kuwo kalaa ku yaala qaar waa dhar qaar waa raashin qaar waa maxaa la yidhaahdaa meela entertainmenti ah qaar combyuutaray gadayaan kuwa maxaa adiga Ombasif haddaan kuu soo dhoweeyo macna ahaan ecosystemkeedu waa moolkaas moolka markaad albaabka ka soo gasho maxaad samaynaysaa ma moolkii oo dhan waxa yaalaad xaabsanaysaa waa maya moolka waxaad ka iibsanaysaa marba tabartaadu siday tahay ya waxaa laga yaabaa intaasoo borodhagti moolasha weliba ama dukaamada meelaha waaweyn moolasha markaad soo geshid weliba ma yaalaan maxaa la alaab free ah wax kasta waa lacag laakiin Ombasif maxaaba yaala borodhagtiyaal free ah waxaa ka mid ah netkii platformkii oo baraha bulshada waxaa ka mid ah maxaa la yidhaha Outream oo ah platformkii maxaa la aad linkigaaga shirkadaada aad magaca ugu baxsanayso ood ku jaraysay ood maaragtay dashboard qurux badan leh wadamada laga booqday website-kaaga kuu tilmaamaya waxyaalo badan waxaa ka mid ah emailkii oo waxa weeyaan xiriirkii maaragtay emailka oo casri ah oo video iyo wax walba leh waxaa ka mid ah maxaa ecosystemka laftirkiisa soo gelidiisa waa bilaash oo cid ku dhahaysa ma jirto haddaad rabto Ombasif inaad ku soo biidho lacag hore ka dhiib maantay barnaamij aan runtii aad u dhagaysanayay oo Dr. Michael Williams uu aad u faahfaahinayay soo gelidda Ombasif inaad ka soo mid noqoto muhiimadda ay leedahay ayuu xoog u faahfaahiyey kolba waa barnaamij kale macnaha wuxuu yiri ha ka fakerin inaad wax iibsato Ombasif just waxaad isku daydaa inaad email free ah ka samaysato ecosystemkana aad dhex imaato qodobada uu ka hadlayay hor qodobo badan ay ahayd mar kale insha Allah video kale ka soo dhigi doonaa oo runtii aan ka diyaariyay aad iyo aad bay muhiim u ahaayeen macnaha wuxuu yiri maanta akoonkaas freega ah
qofka on baasif ka haystaahi ma ogu yiri laakiin waa taajir waa dameer maxaa la dhihi malab xambaarsan waa akoonka firiigaya midka wax iibsada iska badaaba kan firiiga iibsaday bas kii soo invite gareeyana waa asaguna malab halkaa ku shubmaya ayuu asna weel u dhigan la'ya ma fahmaysa micnaha inuu customer qofkaani ha ka fakerin inuu qofku wax gato ha ka fakerin wax kale just free account u samee bas marka dadkii leaderskii free account dadka u sameeyey maalin kale ma aragtay celebrate garaynayaan macnaha inaad free account xataa samaysato on baasif ayaaba guul weyn aba marka waan rajaynayaa dad badan inay hurdada ka kici doonaan marka single sign on kaas ayaa wuxuu yiri kow inoo ah waxaa laba inoo ah waxa la yiraahdaa control your own payment processor macnaha wuxuu yiri marka arinta oo ecosystemka ama single sign onka already is done waynu samaynay oo maxaan ku ognahay inay sameeyeen already waa anagaan dhex joogna waa anagaan maanta oo connect ka isticmaalayna oo productigii ugu horreeyay halkaan aan ka iibsanay ka isticmaalayna waa anaga kuwii freega ku baashaalayna habeen iyo maalin waa anaga saa u dhex mushaaxayno isticmaalayna platformyadii marka weli waxaa ku socda shaqo laakiin exactly waa la sameeyey oo annagiibaa maanta markhaati ah oo waa markhaati madoonta waa midda dhex fadhidid taas wuxuu yiri waa done deal ama waynu maaragtay samaynay okay waxaa kale oo ku xigoo labaad payment processorka macnaha ama qaabka lacag bixinta waa qaabka hadda caqabada ugu weyn ee ombasif hadda beryihii maalmihii lasoo dhaafay lala daalaadhacayay dad kuma shubi kari wuu iga diiday wuu iga yeelay maxaa yeelay wax third party ah ama qolo kale oo bannaanka ah ayay shirkaddu isticmaalaysay laakiin maxay ku dadaaleen oy xooggoodii maanta shirkaddii ombasif isugu geysay in ay samaysato ayadu maanta processor u qaas ah ama lacag bixin ayada si haddii la bixinayo iyo haddii lala soo baxayaba process ama qaab la maro oo waxa weeyaan international bankiskii adduunkii dhan ayay maaragtay waxay ka sugayaan kaliya wuxuu yiri waxaynu sugaynaa maadaama lacagtii processorkii annagu aanu yeelannay oo aan diyaarsanay already annaga aan monetize garaynayna ama annagu aan isha ku hayno annaga ay tahay dadka maamulaya awoodna aan u leenahay inaan maaragtay mobilizing aan ku samayno macnaha mobilizing af soomaaliga waxaan dhihi karnaa micnaha paymentiga in and out macnaha anagu maadaamaan gacantii ku qabannay lacagta baxaysa iyo lacagta soo gelaysaba keliya waxaa dhiman macnaha dhinacii maarata bank international bankiska in maarata sharciyadii wixii la dhammaystiro maalmo yaroo kooban ya sanadka inta ka dhiman ayuu noo ballan qaaday si ogeena in wax annagu aan iska leenno ku faani karno oon shafka garaaci karno oon dhihi karno here you go in aan annagu yeelan doono marka haddii maanta lacag bixinta iyo kaadiidkaar rafaad broblem maalintaasa kuugu dambaysa okay marka in yar cagaha dhulka kusii hay dad waxaa arkayay gruubada maanta oo kale iyo war annagu lacagti ma bixin karno maxaa xal ah don't worry iska daa waxba ha bixinin just wait waxaa kuu soo socda waxaad adigu leedahay od saytaa ugu baashaali kartid marka don't worry okay qodobka kale waxa weeyaan inaan oon garayno maxaa le data center maanta data centerka ombasif isticmaasho wax third party ama ahan ayay shirkadda annaga iskale maxaa la yiraahdaa data centerka laakiin waa data center yaroo inta loogu talagalay hadda 3 milyan 4 milyan oo ku jirta looma baahna data center sanada lasoo dhisayay oo si ogeena hadda ka hor qofkii xasuusta sanad ka hor sanad iyo xoogaa bar ka hor wuxuu nala wadaagay sanad iyo xoogaa adi ka hor wuxuu nala wadaagay data centerkaas inay sheekadeedii meel fiican marayso lana rajaynayo earliga 2024 indaaha laga qaadi doono data center waa meesha xogta lagu kaydiyo daadan garanayn oo waxa weeyaan xogta hadda waad aragtay waxaad samaysatay baraha bulshada marka maxaad gelinaysaa telefoonkaagii magacaagii waxaad gelinaysaa yaa ku ilaalinaya xogtaas xagee lagu ilaaliyaa xogtaas meeshaan shirkaddan aad gelinaysa informationkaaga adigu aad ku type garaacayso waa inay hayaan meel ay ku hayaan xogtaas midda hadda aanu haysano meel seefa annagu iska leenahay ai driven ah ayaan haysanaa laakiin waa mid yar oo ma aragtay aan ahayn midda aanu u soconno middaanu u soconnaa maxay tahay waa data center weyn
waxa maanta hadda data centerada ama meelaha xogaha lagu kaydiyo dhowr shirkadood baa hadda haysta sida Amazon way haystaan data center weyn maxaa la yidhahdaa aduu shirkado yaroo kooban baa maanta data centerada adduunka ugu waaweyn maarata haya laakiin kuwaas mid bentry oo AI driven ah oo mashquul badan u baahnayn ayaa inoo diyaarsan marka taasna data centerkaas oo aad kontroolanaysid ama aad adigu xakameynaysid hostingkeeda macnaha haynteeda iyo maxaa la yidhaahdaa qaabaynteeda iyo maaragtay KYC-geeda ama domain registrationkeeda ama domain macnaha inuu qofkii website-yadii loo sameeyo dadkii sidaan hadda sugaynaba waxaan sugaynaaba waa website-yadii in naloo sameeyo qof walba uu magaciisii la baxo loogu xiro maxaa la yidhahdaa domainkiisii maaragtay marka uu qaato magaciisii kadibna ma aragtay shaqadii isaa ugu bilaabato marka wuxuu yidhi taasna waa qodobka saddexaad u baahannahay marka taasi data centerkaas la controlayo wuxuu noo sheegay shanta qodob oo kale shanta qodoba uu sheegay ama shanta tiir qodobkaas keliya in uu sanadka cusub u dhacayo oo 2024 data centerkaas weyn midda caadiga nu haysana maahane midda weyn ee adduunka aan marka anagu isticmaalno oo bilyaniska on baasif soo galay ay isticmaalaan la rantigarayn doono oo annaga aan ka benefit garayn doono oo waxa weeyaan aanu anagu maaragtay dib u isticmaali doono ama aan maaragtay uga faa'iidaysan doono dhaqaale ahaan data centerkaas unbaa 2024 u dhacayso laakiin inta kale oo dhan waxay dhici doonaan end of this year hadday noqoto maxaa le payment processorka end of this year macna end of this year marka lagu leeyahay waxay noqon kartaa hadda sanadka aakhirkiisa aan ku jirnaa 30 bishaan ay noqon kartaa 15 December ay noqon kartaa 25 December ay noqon kartaa you don't know laakiin exactly inta aan sanadkaanu dhammaanin waxaynu ballan marka waqtiga wuxuu u dheeraysanayaa waan hubaa inay within 2 weeks ku soo dhici karto laakiin wuxuu waqtiga u dheeraysanayaa inaan hadhowtadii ma aragtay rash jirin marka wuxuu yiri hadday crypto lacagtu tahay iyo hadday fiat tahay fiatku waa lacagtan caadiga ahayd cash money maxaa la dhahaa lacagtan kaarka aad isticmaalayo labadiiba wuxuu yiri waa on track macnaha waa wax almost done waaye waxaana ku jirnaa end of this year mahadsantiin end of this year na wuxuu yiri waxay idiin soo noqon doontaa available macnaha inaad isticmaashaan okay hal item buu yiri waxaan soo sheego dhan waa data centerke halkaas item oo data centerka weyn maahane inta kale oo idiin sheegay buu yiri waxay dhici doonaan sanadkan gudihiisa maalmaha ugu dambeeya sanadka macnaha waxay noqon kartaa any day oo maalintu hadlay ka bilaabata ilaa iyo inta sanadku nooga dhamaanayo haddii ilaahay yiraahdo marka waxyaalo badan buu ka hadlay oo runtii noo ahaa annaga ma aragtay wuxuu yiri tilaabooyinkan inaanu qaadno ma ahayn mid fudud laakiin biro go'aan baynu ku gaarnay maanta ka horna idinma sheegi karin oo waxa weeyaan maanan hubin macnaha 100% inay sanadkan ku dhici karto iyo sanadka ugu shayga ugu dambeeyana uu sanadka bilowgiisa ama bilaha ugu horeeya ama 6 bilood ugu horeysa uu data centerkaas ku dhamaystirmi karo laakiin buu maanta waan ku faanayaa waanan macnaha eventually macnaha ugu dambayn maanta we own it waan la wareegnay ama waan hantinay wixii aanu u soo dhacaynay oo sanadada sugaynay jimcadii ugu dambeysay buu yiri sidoo kale waxaa dhacday marka qodobadaas hadday tahay afartii qodob oo sanadkan dhacaya iyo data centerka weyn ee Ombasi fadilaha idmo oo iyaduna sanadka dambe bilowgiisa inta hore adoo 6 bilood ugu horeysa laga yaaba anytime oo kamid inay dhacdo taa shantaa biilar ama shantaa tiir waxa kastaba diinteena islaamka 5 tiir ay ku dhisan tahay oo waxa weeyaan shanta tiir la'aanteed hal mid hadduu saa u qalloocdo waxa weeyaan xaaladdu waa beriga dhexe marka Ombasifna shantan tiir waa shanta tiir oo shirkadu ku dhisan tahay oo hadduu mid ka mida liico ama wax ka shaqayn waayaan ama wax yar ay si noqdaan aysan ma aragta suuragal ahayn in ganacsigu sii socdo waa in marka shantii xididada loo wada adkeeyo la wada dhamaystiro
data centerka miyaa laga maarmayaa mise waa la sugayaa maskaxaada laga yaaba inay ka guuxayso ilaa iyo sanadka cusub miyaa la sugayaa bilihiisa hore oo waxba lama samayn karayo maadaama shanta tiir aad tiri maya already data center nagu filan oo lagu sii rangaraynayo waanu haysanaa ma ahan data centerkan dhowrka milyan deeqa midka laga hadlaya waa midka weyn ee adduunka dhan laga karayn doono ama looga faa'iidaysan doono ganacsi ahaan midka laga hadlaya marka insha allah marka adigu dhiirigelin badan ayuu maaragta halkaa ku jirta oo runtii aad iyo aad u muhiim ahayd qofkii akhrin kara insha allah waqti ha geliyo sidoo kaleeto wuxuu yidhi jimcadii hadda last friday ama jimcadii ugu dambeysay waa maalintu hadlay arbacay ahayd jimcadii ka horreysay sida aad ogeydeenba kulan aad iyo aad u muhiima oo asna waxaa ka dhacaya sharm sheekh ka dhacayay maaragta ganacsiga adduunka africa iyo carabaha lagaga sheekaysanayay oo runtii ombasifna ay ka ahayd qayb oo waxa weeyaan aad iyo aad muhiim ugu ahaa ama xudun u ahaa ombasif inay ka mid noqoto oo aad iyo aad wuxuu yidhi waxaanu ka gaarnay buu yidhi waxay noo ahayd buu yidhi big accomplishment macnaha inaan ku guul ama maaragtay soo macnaha kasoo qaybgalkoodaas wuxuu ahaa mid aad iyo aad u cajiiba dad badan oo wuxuu yidhi maaragtay waxaa ka qaybgelayay ganacsato dad badan oo maaragtay influenceris ah wuxuu yidhi ombasifna aad ayay u soo dhoweeyeen oo waxa weeye macnaha way sugi la'yihiin macnaha fursaddaas inay ka faa'iidaystaan waxyaalaha kale oo ka hadlay waxaa ka mid ahayd oo runtii iyaduna cajaa'ibka ahayd in uu yidhi macnaha waxay dib ula soo xiriireen buu yidhi kulankaa kadib COO-ga shirkadda maxamed kamaal oo ay yidhaahdeen hay shirkadda share ma ka iibsan karnaa saan ma yeeli karnaa macnaha like they interested already buu yidhi way la soo macnaha xiriireen ama waxay la samaynayaan wada shaqayn sidoo kale waxyaalaha uu ka dhawaajiye waxaa ka mid a xilliga wuxuu yidhi sanadka adigu bilihiisa hore waxaa jirta buu yidhi 3 waddan oo aanu maaragta xarumo maadaama ilaa iyo 6 xarumood hadda shirkaddu daafaha caalamka ay ku leedahay ay maaragta america ka mid tahay orlando ay ka mid tahay maaragta dubai burj khalifa singapore maxaa la yidhaahdaa hyderabad india maxaa la yidhahdaa egypt africa ay ka mid tahay maaragtay bangladesh waddamadaas wuxuu yidhi waxaa jirta 3 waddan oo kale oo shirkaddu ay maaragtay ka degtay ama xaruma ku yeelatay oo waxa weeyaan ayakuna si hadda ma rabuu yidhi inaan ku dhawaaqo oo halkan idinkaga sheego laakiin ayakana si balkid macnaha si wada jir ah macnaha wuxuu xabad xabad uun soo gelin doono oo ma dhahayno waddan hebel haddana ma ayaamo kale waddan hebel laakiin buu yidhi si isku xiran ayaanu maaragtay iyagana idinkugu soo bandhigi doonaa xilliga aan go'aansano ugu horreysa marka insha allah iyaduna waa guulaha taasina waa guulaha la taaban karo waxa weeyaan ombasif ay maaragta so far ay gaartay intaas waa updatekii ama maxaa la yidhaahdaa intii yarayd oo si ogeena qiimaha badnaydu nala wadaagay waxaana rajaynayaa qof walba 100 iyo dhowrkaa qof inay excitedkooda yihiin wax marka adigu aad leedahay aad oongarayso waa waxa ugu wanaagsan ee maanta aad ku dhiiran karto wuxuu maaragtay qodoban ka qoray baa jirtay michael williams maanta wuxuu yidhi ombasif is a last stop maxaa weyn waa meesha ugu dambaysa ood istaagi lahayd ganacsi raadin fursad raadin baahi ka cararid maxaa la yidhaahdaa dad haddaad rabto inaad caawiso magac haddaad rabto inaad yeelato haddaad raadinaysay xoolo haddaad raadinaysay maaragtay dad caawin iyo waxtar inaad maaragtay adduunka bulshada kusoo kordhiso magac sharaf lacag last resource meesha ugu dambaysay oo ay tahay maanta inaad raadiso waa ombasif soo dhawaada qayb kalaan idiin hayaa haddii fursadu jirto guulaysta